السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي النصر أو إذن له في دنمو وناكسن ميلو بعد جوكتين إبينا وضع شاكدي قيبتي دي لبعض أصلي عوالي شاكدا قيبتي كوبات ويقو هوري انتي دقيستي أما لسعوت يوتيوب كانال كيغا waxa inoo joogtay iskuulkii oo iskuulkii caruurta oo la xiriiray cawaale u diray fariin email ugu diray fariintaas oo loogu qeexay inuu shir degdeg ah iskuulku u imaado kaasoo lagala hadli doono arrimo ku saabsan gabadhiisa iskuulkana ma aysan u faahfaahinin waxa laga rabo kaliya macnaha fariintu way koobeen qoraalku way koobeen qoraalkii koobnaa oo cawaaliga oo iskuulka uga yimid intuu maskaxdiisa deganaan u fariistay ma awsan oo dhihin waxa waaye okay maxay noqon kartaa fariintan maskaxdiisa isla markii waxa ku soo dhacday asiga inay maaragtay arintan ay asli ka dambeeyso ay asli abaabuleyso ilaa asiga maxanaha waxaan ku dhahay asli asiga waxaan ku iri dad ilmi isku dhalay oo maaragtay mas'uuliyad ay wada saaran tahay labadooda uma ay dhaqmaayaan laba dawladood maaragtay dagaal maaragtay dagaal qabow oo ka dhaxeeyo isku la dhaqmaayaan waxaan ku iri waa ka furka tuurtay teleefankiisa la booday teleefanka la booday waxaan ku iri asli markuu soo wacay maxaa ka dhaxdhacay asiga asli waa ka yiri hello asli adiga iskuulka gabadhaada fariin isoo diray ma ahan iskuulka gabadheena ama iskuulka gabadheeda ma ahan cawaale waxaan ku iri hadalkiisa wuxuu ka bilowday iskuulka gabadhaada fariin isoo diray adiga ka dambeeyo aniga rabtaa problem iyo buuq iyo arbish nolosha rabtaa in ay wax haleyso sidaas darteed maaragtay aad iskuulka aad u adeegsanaysaa waxaan ku iri aslina ayadana waxaan ku dhahay si degan maaragtay ilaa waxaan ku dhinacaana ilmihii maaragtay oo awalba waxaan ku iri waatay gabadha sideeba maaragtay aabaheed iyo u raadisay iyo waxaas oo dhan waxaan ku iri iyo ninkaan iyadoo waxaan ku iri saan hore aan usoo qeexay ka dhaxeysa maaragtay cadowtinimo maaragtay zaa'id ah xanaaq aslina waxaan ku iri meeshii bay ka caytantay wixii tiri haa ma adiga dad ah doqonaa tahay ma waxa isku maleysaa aabo fiican ma adiga waxa iska dhigaayo midda kale marka ay leedahay iskuulka gabadha aniga waxa waaye ma soo adiga ma aadan dhalin ma aniga gabadha waxaan ka keenay meeshii waxaan ku iri waa la isku buuqay intii la isugu buuqay soo cawaal wuxuu yiri calaa itaxaal yiri aniga waxa noo balan ah meeting iskuulka noo balan ah waxa balan igu ah ina maaragtay wax inta ay iga gudbisay inteed kale inaan ka gudbiyo cawaal wuxuu iloobay ilmaha markay kala tageen asli inuu maaragtay xanaanada caruurta markay tagi jireen markay yaryaraayeen had iskuul dhigtaane oo soo waligiis xanaanada uusan tagin waxaan ku iri asli eesaas ilmaha u daba socotay aslina waxaan ku iri waxay tiri markuu eragaas cawaal oo ka soo baxay waxay tiri ama adigaaba hadlaayo ballan waxa igu ah inaan kugu soo oogo ilmahaas inta ay jiraan da'dooda waxaa jirta Yurubta kulay anaga macnaha ilmaha waxaa jir waalidka markay kala tagaan hadda markaas waalidka haya lacaga waxaa jir la iska jaro oo ilmaha yar la siiyo wax yar oo gunad ah lacagta waxaan kaaga soo bilaabaa maalinta kala tagnayaan kaaga soo bilaabaya inaan ku dacweeyo waaba ka aamusnaa ma ana isu kay soo jeedisay aslina waxaan ku iri furkay tuuratay intii la iscaayn kara waxaan ku iri labadan qofood wax isku dhalay haddii aad maaragtay waxyaabaha hadalada isweydaarsanayaan aad dhageysato waxaan ku iri madaxaad gacmaha saaranaysaa sidoo kale ilmihiina maaragtay labadii caruur eedane markay asli iyo cawaale ay doodayaan ilmihiina waxaan ku dhahay asli agaarkeeda fadhiyaano ilmihii laftirkooda halkaas waxa uga dhacay niyad oo ilmihii yaraa waxaan ku iri ilinta iska qubatay waxa istaayeen wiilka wuxuu maqlaysaa dhibkaas dhan adiga ka dambeeyay maxaa u tiri aabaheen rabaa waa kaas hadda hooyo aabo waxaan ku iri sidoodeeba ku kala nabad qabeen hadda waa kaas waxaan ku iri waa waxay isku caynayaan hooyo maqlaysaa waxa aabo ku dhahoyso markaas gabadhina waxay tiri waxba igama gelin aniga aabahey waxaan rabaa inaan la kulmo xaqa u leeyahay sida ilmaha kaleeto ay aabood ugu imaadaan oo hebel iyo heblaayabo
waxa waa aabahoodii hooyadii bay kala tageen laba ciyaal oo cadaan ah ee maaragtay tusaale usoo qaadatay aabahoodna si caadi iskuulka u imaadaa mararka maaragtay meelaha activiteedka way isla wada joogaan maxaa anaga nagu dhacay maxaa anaga hooyadeen iyo aabaheen maxay special u yihiin why ay u yihiin gabadhii riska wiilkii waxay ku tiri why anaga our parents ay maaragtay u yihiin maaragtay dad aan isfahmi karin oohin wiilkii walaashiis buu laabta geliyay asli waxaan ku yiri waxaas dhan uma jeedee ilmihii ooynaayay waxaasoo dhan ma aysan fiirine taleefanka cawaala markuu ku jaray taleefan kaloo waxaan ku dhahay saaxiibteed samsamee u catay wixii tiri samsamee isoo gurmo tolaay aniga maanta cawaala ii goodi wuxuu ugu yiri adaa iskuulka iga dacweeye adigaa raba inaa arbush ugu furto naagta xun ee uu guursaday ooba waxa waa aniga wax kale iga dhigabo ilaa asli boogta markuu yiri nolosheeda ka xunta nolosha harta aniga arbushto maskaxdeeda ayada maaragtay waxa soo gashay macnaha xukun ninkan naagtaas ilmahaas oo qomaha ma nolol kale haystaa waxa uu isleeyahay ma aniga asiga nolosheeda asli waxaan ku meeshii wixii waxaan ku dhahay cawaale oo ku shubo dhan wixii ku shubtay saaxiibteed ayadana waxaan ku dhahay samsam waa mid kale barakalaay asli saaxiibteed waxaan ku meeshaan ka cambaareynaynaay anaga waxaan nahay bulshada sheekada waxaan ku dhahay wadee samsamna meeshii waxay tiri naama saasuu ku yiri ninka dacwey waxaan ku iri haba inta ha fiirinin asli markii la yiri dacwey waxay tiri bas bari subax arintaas oo ku dhaqaaqaya adiga ii kaalay marka asli luuqada wadanka ay joogto si fiican ma aysan aqoonin samsama waxaan ku iri ay balansatay marka waxaan ku dhahay sheekada cawada waxay noo joogaysaa halkaas noo joogaysaa bal dacwada iyo wixii maaragtay ka soo baxo dhinaca kalena waxaan ku iri cawaalan astigan wuxuu isku diyaarinayaa maaragtay iskuulkii inuu maaragtay oo shirki iskuulka maaragtay oo asigana waxaan ku dhahay usoo socdaa meeshaasna waxa ku balansan iskuulka aslina waa looga yeeray fariinta oo iskuulka shirka kulanka cawaala iyo asli iyo macallimiintii oo iskuulka maxaa dhinacaasna dhici doono dhinacaane asli waxay rabtaa dacwada inay cawaalo ku furto bal waxaan ku iri adiga un dhegta ha idiin taagnaato sheekada cawada intaas inoo joogaysaa qaybteeda labaad meel walba aad joogtiin waxaan idiin rajaynayaa khayr iyo caafimaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.